inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. Allaha u naxariista laba qof ayaa ku geeriyooday shil baabuur oo habeennimadii xalay ka dhacay duleedka bari ee magaalada Burco halka ay ku dhaawacmeen in ka badan 15 ruux. Gaarigan dhacay sababay dhimashada iyo dhaawaca ayaa ah nooca loo yaqaan Toyota Xaajiyad. Haddaba agaasimaha cisbitaalka weyn ee magaalada Burco Cabdikariin Maxamuud Hayaan ayaa ka xog waramay shilkaasi iyadoo sidoo kalena la soo gaarsiiyay dadkii ku dhaawacmay shilkaasi cisbitaalka magaalada Burco. shilkii baabuur ee dhacay xalay toole runtii shil aad iyo aad u naxdin badan ahaa dad tiradoodu gaarayso 18 qof oo dhaawac ah ayaa cusbitaalka soo gaadhay goora baarashantii iyo barkii galownimo ah dadkaas oo dhammaantood lagula tacaalay cusbitaalka guud ee magaalada Burco runtii dhaawacyada kala duwanaa awgeed laba qof oo kamidii way dhinteen waxaan leenahay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun halka 16 qofna lagu dabiibayo cusbitaalka guud ee magaalada Burco dhammaantoodna way fiican yihiin shilka sida warku igu soo gaaray wuxuu ka dhacay gaarka warshada Tayda dad maxay toolay fara badan oo gaariga fuushan bay ahaayeen runtii asaasan shilku ku yimi 16 qof kalena maxay toolay daaweyntoodii iyo maxay toolay waxqabadkoodii baa u socda halka labada qofna maxay toolay midna xalay xilli dambe uu go'ay midna markii uu soo soo gaadhay maxay toolay gobol qof dumar ay ahayd ayaduna maxay toolay teedi noqotay wa fillahi alhamdu shilka culus maxay toolay cusbitaalku la tacaali doonaa Cabdiraxmaan Ciise telefishinka caalamiga Somali Cable Burco.